dhibka badnaa ee shaydaanka ku noqday wadaadka maalinka dambe intuu Umar sirta ka soo yiri ii ducee wuxuu waan ku ducayn laakiin saddex xaalo haddaad yeesho baan ku ducayn bishart inaad saddex yeesho haddii kale ku ducayn maayo kuna habaari maayo saddexdii raawigi wariyay mid buu halmaamay laba sheegay labadii baan idin sheegay nin saddex la raaciyo xabad ka tagay Sheekh Xasan wuxuu yiri juz quraan nin saddex goor gafay juz quraan oo saddex goor la gafay maxaa ka soo haray juz quraan oo saddex goor la gafay maxaa ka soo haray marka saddex arrimood oo aad xabad ka sii daysay wax fiican kama soo haray almuhim wuxuu yiri waxaan kuugu ducaynay bishart inaad alla tu'dini fi ma baqi horaan wixii aad ka soo tagtay mareysay waxba lagu ma haystee inta dhiman noloshin inaad dhibani ballan qaad aniga ku jeejees jiray ee meel istaagwadaad ku diiday ee ka xijaaban jiray way ninku wallahi allah wuxuu yiri alla tu'dini fi ma baqi ballan qaad inaad mar dambe dhibaynin waa ballan buuri waxa koo ballan qaataa inaadan u sheegin sayyidina Umar wixdin dhaxmar ruux bin aadana alla tukhbira ahadan bima qala laka Umar ruux bin aadan inaad u sheegin intaad nooshahay Umar wuxuu kugu yiri iyo wuxuu kuu sheegay ee aniga igu saabsana muxuu ka baqayaa sirtu intay baxdo in lagu soo fakado wayna dhacday sirti baxday war ma qarsoomo waagi dambe uu noqdo in adeerkii war la arkay waxa la warwaasiday wada ninka dhibi jiray wadiga hadda daba hablayna waasiday oo meeshu maraba barakaysanayo daba taagan war aamusu dhij waxba ma ogaad dunku waa isbedelay asagii baa laga daba qaaday gurigiisii buu joogo waayay masaajid baa nafta loogu keenay maalinka ugu dambeysay masaajidkii buu ka istaagay wuxuu muslimiinay wadooyinka markaan soo dhibka ugu dhibaysay iga daayay noo ducee wayso mid taabta mid yaa noo ducee nafta loo keenay wuxuu yiri masjidka kaliya aan ku qorno wadooyinka idaaya ma yaa leeyda meeshaan aragno dilkan horsanayna musaasaha waa inuu bari oo dhuntay dib dambe lama arag aragga ugu dambeeyay si caana loo ogaado dagaalka Sifiin baa lagu soo dhex taagan ka kooxo saaxiibadana wata halkaas ku shiiday ninku qisadaas